السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومالي ويني واني سلامي مeel kasta adduunka joogtaan bashbash iyo barwaaqo ku noolaada bashbash iyo barwaaqo Soomaali weynay ku noolaada baalka banalka iga dansan waa mugdi karaali ahaada Soomaali weynay nalkaad baryahan daciifiga ah marka aan isla dhageysano dagaalkii daarood iyo hawiye dadka hore u socdaan ma dib baan u soconaa Soomaali weynay qabyaaladnimo goormaan ka baxayna dagaal iyo qabyaalada duu wax tar iyo 30 sano dagaal ku jirnay baan isla dhageysano Cabdi Fatax Boodari dagaalka qabiil ee ka socda ee beelaha oo ka socda TikTok ka socda yusra kale beenkayga halka iga soo bixi beenkii cadaalkan ku qabsanay ha borta beenkii iga soo bixi meesha wax baan doobiyaa keep quiet beenkii cadaa halka ku qabsaday daaroodkii hawiye iyo daarood bismillah Soomaaliyeed loo kala baxay oo tik balku ka socda TikTok uu ka socda dagaal cusub ma dagaalkani 2017 ayuu horta social media la soo geliyay waxaan ka mid ahaa dadkii arrintaas meesha zeebka dagaalka يعني هيجن يقوم رجي لقلي ما كمل أحد نين أنا يرجع وسكنا يبغى أنا يرجع بدل أصوماليات أو مواطنين وأنا تأكد على أياتي لبدي يكون يستدين يطاقي سنة ما كانوا يفرقون قلت عليكم كمان ماله لبدي يكون يكوب يلباتنكي أيات نمان صومالي أو سياسيين شيخة وأنا قاعد مدح كتي waxay soo qaateen mashruuc la yiraahdo kala irdaynta ummadda Soomaaliyeed maadaama 30 sanadood dadkii Soomaaliyeed daaleen oo runtii xaqiiqadii la ogaaday ana muqaalada sameeyo oo iyagu u noolaadaan habeenkii markii ka daaday dawladda shisheeye waxa loo soo qaatay lacag in lagu kala irdayo ummadda Soomaaliyeed amaanta ummad Soomaaliyeed in ay kala irdowdo wallaahi waya dagaalkan qabyaalada aad baan uga xumahay Soomaaliya mid ah ina daarood iyo maxay hawiye la dhaho dagaal baa ka socda waa wareer maxay Mrs World ayaa waxaan u maleeyahay ayayda daarood tahay markaas meeshii leedahay daaroodkii qabiilkeygii aaway ayayday sidoo hadda sheegi aan ka dhageysano halkan ayayday aawayay qabyaalad loo kala baxo oo aan halka soo fariisto waxay soo qaateen mashruuc la yiraahdo kala irdaynta ummadda Soomaaliyeed maadaama 30 sanadood dadkii Soomaaliyeed daaleen oo runtii xaqiiqadii la ogaaday TikTok-ga niba laga hayaa niba taagtii hata laabsan way jiraan rag jiro lifekaas iyagu day qabiil meesha Mrs World leedahay Soomaalida xaqay diraaday sawirka technically ada properly sawirkidir ya banaankii marala ka technically daarada technically way daarada oo dig daarad soo koday waa dagaalkii daarood iyo hawiye iyo mucjisooyinkii ka soo baxay in gumeed iyo hoosumeedaan daarood wax taraysi in gumeed iyo hoosumeedaan hawiye wax taraysi hawiye baahan baa jira oo daarood baahan baa jira oo dadka loo shidine anaga halkaa idiin soo dhigaynee boqolaal daarood iyo boqolaal hawiye oo gaajisane oo dadka loo shidino yaabano guurguuray qaar cidiyaan aanaa idinkeeda iyo hawiye oo daaroode wax siiya jahannamaad boos ka iibsatay jahannama ayaad boos ka iibsatay haddaad $10 bixis oo TikTok hawiye daarood ku bixis
aad kulanti wacan wanaagsan xalta idaacada qaadiga badisana dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogtaan daarodigu jiro iyo haddaan hawiyahay oo habeen gidin ahay labadaba hadlay hiriyadeen waa labadii qabiil ee is haystay gabadhi Mrs. Waldi oo hinteedu waa maqliseen Soomaali weynay waxay tiri hawiye aaway maxay habar gidir aaway haddii dhiigga nilga miirtayay dhiigga baranbara ka noqotanayay maxay reeyayda aaway daaroodka reeyayda aaway waa labadii qabiil isaysta hawiye iyo daaroodkii qoladii bay u yeeranaysaa ina sida la isku yahay ogaanteed lahaa ilaahay ba afkeeda ka dhawaajiyay gabadhan alla dad badan maxay yaabi doonaan ilaahay ba afkeedii ka dhawaajiyay saasaanu nahay waan isdhaldhalnay halkaa la kala jira waa wiil iyo abtigi iyo maxay ama ayaydaa bay dhaleen ama waa hooyada ama aabaha baa la dhalay daarood iyo hawiye halkay kala jiraan Soomaali weyne halkaan kala jirna aniga hawiye aabahay bay dhaleen aniga raxma cadeey halkaa fadhiya hadlay aabahay hawiye aabahay bay dhaleen waari ayaydi ma garateen isaaqa dhanka isaaqana qaraaban kana halkaan kala jirna saddexda qabiil waaweyn oo Soomaalida ah isaaq hawiye daarood waa saddexda qabiil ugu waaweyn baan u malaynaa daan been sheegaynin halkaa la kala jira saasaan isu dhaldhalnay halkaa la kala jira dhanka Somaliland deegaan baabana ku nahay waaba deegaan baanu nahay halkaan kala jirna walaalayaal halkaan kala jirna aniga ciil baabay qabtaaba markii la dhaho qabyaalad iyo wax la sheego iyo qabiil ba qabiil haysta ama qabiil ba ay waa ciil baabay qabtaa bismillaahir rahmaanir rahiim hadda gabadhan Mrs. Waldi habar gidirnay tahay baan u malaynay aaway habar gidirtiyay reeyayda daaroodkii aawayay waa labadii qabiil dagaalamay aawayay leedahay ilaahay ba afkeedii ka dhawaajiyay walaalay goorma la maxay indhaha la kala furi doona goorma xaq la ogaan doona dadka bidcaadanka aqliga leh hore baa loo socdaay Soomaalideena wax mooday inaan gadaal u socono shayga qabiilka la dhaho goorma la dayn doona goorma la iska doon doona qabyaalada goormaan iska daynayna bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay oo ka madoobay Soomaali qabyaalada intaan ku dhex jirno intaan xumaata iyo qabyaalada sida ugu jirno ilaahay oo rabbiyo balaayada iyo qabyaalada dhexdeena dhextaala ilaahu naga saar Soomaali mid weeye meel ma kala jirtee ilaahay oo balaayada dhexdeena ku jirto naga saaro midii naga dhigo waxayna isu nahay Soomaalinimadii iska daa ina la isdhaldhalay iska daaye Soomaali qofka markay iskugu imaataan bal fiiriyaya bal daya Soomaali qofka markay iskugu imaataan isku deyn baa tihiin isku dhaqan af baa tihiin haddana waxaa tihiin isku dhaqan hal meel baa kasoo wada jeedaan halkee la kala jira Soomaali weyne halkaan kala jirna reer TikTok way waalatay reer TikTok daraatan ka hadlay reer TikTok way waalatay ilaahay balaayada ha ka soo hanuuniyo balaayaday ku jiraan iyo qabyaalada hadda gabadha Mrs. Waldi saasay u ooynaysaa maxaa ka ooysiiyey ma jannadii bay weyday maxay la ooyday qabiil baa la ooyay qabiil miyaa dabiya dadkaygii aawayay reeyayda aaway waxaa ka dhacaya kolayba aragte Soomaaliya shay laagta subscribe-ka ii saara Soomaali weyne meel qayr baan rajaynaya meel fiican gaarsiiya Soomaali weyn saas weeye meel ma kala jirno mid baanu nahay ilaahay qofka dhexdeena jiro Allah naga saaro mid qalbigeena Allah isu soo jeediyo Soomaaliya khayr baan rajaynaya sida iyo kulanti dambe oo xiiso badan leh wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh